بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وناكسن داودياشا قيمها يقدرنتا نغا مدن meel kasto dunida ka joogtaan iyo sulbood nala socotaan ciid wanaagsan ayaanu dilanahay kulli caam antum bixeer. halkani waa shacabka TV oo diisoo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay dhacdooyinka Soomaalida iyo dunida dacladeed. kulanti hagaagsan daawadayaal qodobada xiisaha badan aan idin hayno waxa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo daboolka ka qaaday arrimo muhiim oo ku saabsan dib u soo kabashada dawladnimada Soomaaliya iyo dib u dhiska ciidan ee socda iyadoo qodobo muhiim uu kaga digay ciidanka qalabka sida. qodobada uu ka hadlay madaxweyne Farmaajo kadib markii munaasabada farxadda ciidda uu la qaatay ciidamada qalabka sida ayaan warkaa ku eegi doonaa. isla dawladda Soomaaliya oo qaaday saacadii la soo dhaafay tallaabo ka oysiisay mid ka mid ah xubnaha murashaxiinta ee mucaaradka. maxay ahayd tallaabadaasi ay qaaday dawladda Soomaaliya? waxaan ku eegi doonaa warkeena. cutub ka tirsan ciidanka commandoska danab ee sida gaarka u tababaranna waxa tababar loogu soo gabagabeeyay taliska Turkiga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ee Turkizom. waxaan u eegi doonaa ciidanka gaarka ee mar kale tababarka uu soo gabagabeeyay Turkiga iyadoo uu gacan libaax leh uu ka geysanayo dib u dhiska ciidamada qalabka sida. wararkii ugu dambeeyay howlgallada ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka wadaan gobolka Mudug halkaasi oo dib mar kale faahfaahin ay ka bixiyeen saraakiisha ciidamada qalabka sida. qodobadaas iyo kuba kale ayaan idinku soo gudbin doonaa warkeena. meel kastoo aad joogtaan ciid wanaagsan ayaan dulanahay kulli caam antum bixeer. aragtideena saliimka marka hore waxaad qaybta hoose ee commentiga isugu hambalyeyn kartaan munaasabada Ciidul Adha. waxaad kaloo daawadayaal ra'yigeena saliimka ku soo cabiri kartaan fariimaha xasaasiga ee uu diray madaxweynaha qarankan Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo munaasabada Ciidul Adha la qaatay qaybaha kala gedisan ee ciidanka qalabka sida iyadoo qabyaalada uu si weyn kaga digay ciidanka. fariinta uu gudbiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ra'yigeena saliimka ku soo cabiri kartaan iyo qodobada kale ee warka. ma jeclaaleed muwaadin in talada dalka uu mar kale dib ugu soo laabto madaxweynaha. qaarkiin haddaad ka cusubtiin shacabka TV subscribe hadin ahado oo muuqaalka like noo saara si share gareeya oo gaarsiiya ummadaha kale ee Soomaaliyeed. imankana aynu guda gallo wararkaasi oo dhameystiran. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku caanbaxay tab hogaamineed oo dawladnimada Soomaaliya uu ku dhiirigelinayo inay dib u soo kabato ayaa munaasabada Ciidul Adha awadeed waxa uu farxadda la qaatay qaybaha kala gedisan ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ciidanka qalabka sida waalidiintood, xaasaskood, caruurtood iyo guud ahaan iyagu wuxuu ugu hambaleeyay munaasabada Ciidul Adha iyadoo sidoo kale uu kaga mahadnaqay madaxweynaha ciidanka qalabka sida sida wacan ay markaasi ugu taagan yihiin difaaca qaranka iyo dib u soo celinta karaamada ummadda Soomaaliyeed. waxaan uu madaxweynuhu boogaadiyay siday ciidanka qalabka sida ay kaga go'an tahay difaaca dalkooda iyo ilaalinta karaamada dadka Soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa sheegay in geesiyaasha ciidanka qalabka sida ee uu istaagay xoreynta dalka iyo ciribtirka argagixisada ee al-shabaab ay tahay taariikh xusi doonta dadaalkaasi ay ku bixinayaan difaaca dalka maadaama ay u soo dhabar adeegeen duruufo adag si ay u samata bixiyaan dadkooda. waxaad tihiin ciidan qaran oo u taagan difaaca dalka, dib u soo celinta nooleynta dawladnimada iyo ilaalinta karaamada dadka Soomaaliyeed. waxaan idinkugu hambalyeenayaa munaasabada Ciidda Arafo iyo waajibaadka qaran ee aad gudanaysaan. farxad gaar ah ayay ii tahay in aan munaasabada noocan oo kale ah idinkula qaato halkan maadaama aad tihiin geesiyaasha aan ku jiifano oo aan ku faanno. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa yidhi ma tihiin shaqaalo ama kuwa shaqaysta ee waxaad gudanaysaan waajibaad qaran. sidaa daraaddeed waxay mas-uuliyad idinka saaran tahay xoreynta dalka iyo ilaalinta dalkan argagixisada cadowga gudaha iyo guud ahaan cadowga Soomaaliyeed. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa kaloo uu boogaadiyay howlgallada socda ee ka dhanka al-shabaab. waxaana uu sheegay in ciidanka xoogga dalka guulo waaweyn ay soo hoyiyeen dhowrkii toddobaad iyo bilihii la soo dhaafay iyo sanadihii tagayba maadaama magaalooyin waaweyn iyo deegaano fara badan oo kooxdu ku sugnaayeen laga saaray. dhinaca kale khudbadiisa ayuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inta uu jeedinayay waxa uu ciidanka kaga digay dhowr qodobo oo muhiim ah kuwaasi oo uu mid u dul istaagay iyadoo laga xusi karo
dhanka qabyaaladda waxaana uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya 30 sano ee la soo dhaafay iyo wixii dhawaanahanba ka dhacay Muqdisho in ay saldhig u ahaayeen qabyaalad isla markaana ay dirarayaan laba fikradood oo kala ah wadaniyad wax dhisaysa iyo fikir qabyaaladaysan oo suuragal ay tahay in shisheeye ay dusha ka riixayaan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidanka ugu baaqay in mar walba ay ka fogaadaan dana gaar, mid kooxeed iyo mid siyaasadeed intuba kaliyana ilaaliyaan waajibaadka qaranka u igmaday ee difaacidda dalka si loo soo celiyo sharafka ummadda Soomaaliyeed. ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay dowladda uu hogaamiyo inay ka go'an tahay sidii loo soo celin lahaa magacii ciidanka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen qaaradda Afrika ee ah libaaxyada Afrika, isla markaana rajada ay aad u wanaagsan tahay. wuxuu madaxweynuhu sidoo kale ka warbixiyay dhismaha ciidan ee socda, wuxuuna sidoo kale tusaale ahaan soo qaatay ciidamada qaybahooda kala gedisan, kuwa dhulka, kuwa badda iyo bariga iyo kuwa cirka. dhowaan ayuu sheegay in dalka ay soo gaari doonaan qayb ka mid ah ciidanka cirka oo ay sidoo kale ka mid yihiin kuwa makaanikada ah, baylodyada, diirada dagaal iyo qalab kaloo loogu talagalay inay ku howlgalaan ciidankaasi cirka. khudbadan taariikhiga ah ee uu jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aad u soo jeedatay indhaha bulshada Soomaaliyeed, halka ay ka naxisay oo ay dhul kala jartay cadawga Soomaaliyeed haddii ay yihiin kuwa gudaha iyo kuwa kale ee dibadda. arrintan dhiirigelinta ciidanka waa tab hogaamineed oo taaba gashay isla markaana uu ku caanbaxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xilliyada munaasabadaha farxadda ee ciidda iyo sidoo kale waqtiyada kale ee dabaaldegyadu ka dhacaan gudaha dalka inuu waqti la qaato qaybaha kala gedisan ee ciidanka qalabka sida. waana arin ay aad u bogaadiyeen uguna farxeen intooda badan shacabka Soomaaliyeed. wahagaag daawadayaal waxaad la socotaan wararka shacabka TV meel kastoo aad joogtaan. ciid wanaagsan ayaanu dulenahay. khudbada xiisaha badan ee uu jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Sayid Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ra'yigeena saliimka ku soo cabiri kartaan. bal markan aynu eegno maamulka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa tallaabo adag ka qaaday mid ka mid ah kooxda mucaaradka Soomaaliya ahna murashax madaxweyne sida uu sheegtay kol hore. tallabadan ay qaadeen maamulka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa la xiriirta kadib markii shakhsigan isagoo aanay ka fiirsanin boorarkiisa uu ku sheeganayay inuu yahay murashax madaxweyne uu isaga dhegsaday goobo u dhow garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho, maadaama garoonka diyaaradaha aadan cadde uu yahay isha laga eega dalka. go'aan ka soo baxay maamulka garoonka diyaaradaha ayaa lagu amray in boorkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan looga fajiyo halka, iyadoona fariin digniin ah loo diray ninkan lagu magacaabo Daahir Maxamuud Geele haddii falcaynkan oo kale uu mar kale dib ugu laabtana uu la kulmi doono tallaabo midan ka duwan. waxaa kaloo digniin loo diray kooxaha kale ee siyaasiyiinta oo la faray nawaaxiga garoonka ama meel u dhowba in boorarkooda aanay ku dhejin karin haddii ay boorar dhagsanayaan ay geystaan meelaha kale ee gudaha magaalada. siyaasiga doonaya inuu xil qabto ayay sheegeen in inta badan uu isku qaldo danaha qaranka iyo waxyaabaha bahdilka ku ah sumcadda qaranka Soomaaliyeed, taasina ay tahay wax laga gudbay. haddaba waxaa horey loo xasuustaa rag barsaabyo dowlad goboleed ah sida barsaabka maamulka Puntland ninka lagu magacaabo ganacsada Saciidane iyo barsaabka kale ee fadhiya Kismaayo in iyaguna ay horaantii sanadkan hub fara badan kala soo degeen garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho xilladii ay shirarka kaga qayb galayeen gudaha magaalada Muqdisho, taasi oo bahdil ku ahayd garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. inta badan dunida horumarsan waa ceeb ilama arkaan in garoon diyaaradeed hub laga soo dejiyo ama sidoo kale wax dhaawici kara sumcadiisa lagu sameeyo. inkastoo dowladda Soomaaliya arrimaha caynkan ay kale soo laalaatay aad ula dagaalamayso, haddana kooxaha siyaasiyiinta ee khibradda fog aanay lahayn ayaanu kala garan karin waxyaabaha dhibka ku keeni kara sumcadda qaranka iyo danahooda siyaasadeed ee u gaarka ah. inta badan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ma ahan kuwa qaran ee waa kuwa qabyaalad riixaysa iyo dana shisheeye iyo iyaga u gaar ah. haddaynu markaan eegno dowladda Turkiga oo gacan libaax leh ka geysata dib u dhiska ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa imika tababar waxay u soo gabagabaysay qayb kale oo ka mid ah ciidamada xooga dalka. ururka sagaalaad ee Gorgor ayaa tababar waxaa loogu soo gabagabeeyay xerada Turkiga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ee magacooda loo soo gaabiyo Turkism. waa ururka ugu halista badan ciidanka Gorgor, waxaana ururkan ka kooban yihiin tiro lagu qiyaasay ilaa 500 oo askari. hase ahaatee waa ciidamo si gaar ah u tababaran
ciidankan inkastoo kaliya boqolaal ay yihiin haddana waxay u qalmaan kumanaan sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan waaxda gaashaandhigga ee Soomaaliya maadaama ay qabaan tababar aad u culus oo aysan qabin ciidamada kale iyo sidoo kale kuwa daris kale ah Soomaaliya. dib-u-dhiska ciidamada qalabka sida ayaa heer xabaaro ah ku socota. Turkiga ayaana kaalin libaax la arrinkan ka geysanaya, ciidanka ugu badanna isaga ayaa u tababaray dalkeena hooyo ee Soomaaliya. warkii oo aad kala socoteen daawadayaal Shacabka TV ayaa intaasi ku dhan. waad ku mahadsantihiin daawashada wacan ee warkeena. ciid wanaagsan ayaan u leenahay. Shacabka TV wuxuu idin soo gudbinayaa warar sugan oo xaqiiqada ku salaysan, sida daraadad ku taxnaada wararkeena iyo channelkayaga oo gambaleelka idin furnaado, subscribe na hadin ahado qaarkiin ee inagu cusub. nabadgelyo.